Assalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badan ku soo dhowaada muuqaal cusub iyo kaabka tutorial. Muuqaalka waxaa ugu hadli doona qoraalka qofka ka dambeeyo sida kuu muuqata afka qalaadna lagu dhaho text behind the person. Marka hore sidan ayuu ahaa, wax micnaana ma sameyneen, waxa uu iska aha qoraal muuqaalka isaga dul qoran. Markii dambana sidan ayaan u bedelay. Waxa aan soo furanayaa CapCut kadibna waxaan dhahayaa New Project. Waxa aan dooranayaa muuqaalka aan rabo in aan wax ku qoro. Kadib text ayaan taabanayaa, waxa aan qorayaa qoraalka aan rabo. Kadib waxa aan dooranayaa fartan nooca aan rabo. Steelka farta haddii aad doonayso wax waa bedeli kartaa. Fartaada haddaad doonto bold ama waaweyn ayaa ka dhigan kartaa. Sidoo kale italic ayaa ka dhigi kartaa ama jiif hoostana waad ka xariiqi kartaa. Sidoo kale animation ayaad u samayn kartaa ama qoraal soconayo ayaa ka dhigi kartaa gelida qoraal ama marka uu dhammaanayo. Haddaba intaan ila soo gaartay maxaa isugu dhajinay laygta calyada iyo halka subscribe. Qoraalka muuqaalka la wada ekay. kadibna muuqaalka save garee adoo calaamadaas sare taabanayo. Muuqaalka hadda save gareysay soo qaado. Ujeedaa waa iska muuqaal caadiya qofka iyo qoraalka sareeyo. Sug marka ha degdegin, waxaa mareyna muuqaalka meesha ugu muhiimsaneed. La soco tallaabooyinka aan qaado. Ofaley ayaan taabanayaa si aan ugu soo darsado muuqaalka originaalka ahaa ee kow oo aan wax qoraalo lahayn. Waa ujeedaa muuqaalkan waa kii originaalka ahaa, wax qoraal ahna malaha, balse muuqaalka ka dambeeyo ayaa leh qoraal. Muuqaalkan originaalka ayaan waxaa ka saarayaa backgroundka si aan uga saaro. Waxaan taabanayaa cut out kadibna remove background. Waa ujeeda backgroundka ayuu ka saarayaa, waana isla arki doona natiijada soo baxdo. waa natiijo qurux badan. Sidaas fudud ayana ku samee kartaa qoraalka qofka ka dambeeyo. Haddii aad fahantay, isku day muuqaal aad leedahay ina magacaaga gadaal uga qortid. Haddii aad ku qori weydo, ogow waxbaa qaladay. Muuqaalka si taxadar leh u daawo. Warsan iyo salaama isma dhaafno asxaabay. Muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum.